waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo gabagabayno filimkii nabsi waa oday qabiilista oo naciibka farqaha ku wato kana qayb galay burburkii dalka ilaahayna fursad kala siiyey oo America uu yimid oo uu ka faa'iideysan fursadda iyada ah oo weli naciibka ku jiro qaybta labaad oo ah ilmahan Soomaalida maalin wax dilay ilmahan adinka dhasheen geed walbana dhicaankiisu dhala maadada saddexaad waxaan aad ugu xumahay markaad aragtid qof Soomaali oo jid yaalo qofka Soomaaliga ama rag iyo dumar nooc doon ha noqdee wuxuu isla markii istusaaya fikrad qaldan isma dhahayo war qofkan mala dilay war qofkan wadnaha ma istaagay war qofkan sokor muu qabaa wuxuu isleeyahay lacabsiin waa ayaan daranahay ina bigjar qaldan wax walba ay ka qaado qaybii wanaag dhan ka tagtay waxaan halmaami kareynin walaalkay ninka ugu da'day ee Soomaali oo jiif arinta noqdo website weyn waa website bartamaha sanado badan ahaa ninkii ugu horeeyay oo short film sameeyay oo la yiraahdo fikrad qaldan isla markaas haddana sameeyay short film la yiraahdo cusbo 1.7 the funniest short film ever ninkaas ayaa sameeyay filmkan la yiraahdo nabsi waa walaalkay waa saaxiibkay waa radio host waa CEO the founder Blue Carpet محمد عبد الله علي تريك والوال ما هذا هجرته أسرع فيلم ميكر كأسرعنا برودوسر وحوا قرا وقابيا وانا جلا لكن sometimes وحقوم بهانا جرب واحد سجان جوي نك هذا وحنا المام كرين أكثر بدن أو قالي أو كجرو أو أكيد داون دونتان ما هذا هجرته جودهانتين وانا داون دونتان فيلم كلام عبد الحي نفسي thank you and peace سوق عالي شارع ما قال هذا يسوي دوين دي باش وافق معنا انا ارقد نبرد كبير هاي اوكي اكشن بدل شتاء والله سانا هجر معي والله بالله تعالى قال والله حنونيس هذه محل هيك انا سباتهم كان سعودة تلك انا قسيت متكون سميها نوم الحلقه هذا كور وطلقك صدر هذا هاي كبير هذا هي انا لين صوف في حاله على قلبي انت تتكلم كل وقت عاوز سوقي لو دار الشيء اكشن كور حالة